aniga saxila maaha waxa ku xigi doonta hadii kale de heesi aynu garanayno asaga afeef mudana yaray marwey sanad baa ka soo wareegay kulankeenii ugu dambeeyey aynu ku kulanay magaalada barakaysan iyo dhulkan barakaysan ee imaaraadka oo aynu isugu waranay hawl bulay inoo ahayd berigaas waxaa kaloo inoo bilow ahaa xilka xukuumadda iyada oo sanadkaa bilow joogay isna oo gujirsaday oo sanad isla dhammaystay waxaynu ka horeyn doonaa socdaalka iyaga iyo kii hore iyo wixii aynu isu warranay wixii inoo qabsoomay iyo wixii qabiya markii aynu halkan isugu nimid oo nimankani berigaana si karaamale inoo soo dhaweeyeen oo aada u sharaf badnayd oo lagu diirsaday cadowga somalilandna ka naxay soo dhaweynta iyo sharaftuna ay u horayeen ay u fidinayeen qaranka somaliland oo dhan oo qaranka karaameynayeen waxaynu berigaa ku heshiinay dhowr qodob oo rajo fiican lahaa oo ahaa arrimaha taabta mujtamaca laftiisa iyo guri walba waxaa ugu waaweynaa qodobadaasi qaar badan way ka hirgalan ilaa 9 qodob oo in baa lagu heshiiyey qaarna weli waa qabiyo waanu ka raagnay oo howlo dalka gudihiisa ah oo aynu ka warrami doono ayaa naga daahiyey markay howluhu gaabiyaan in ciddii ay hawsha ka xasaas ka soo noqoto tira hawshu ay gaabanaysaa aan dheereyno waanu ka daaha waxaan berigaa ku heshiinay oo aada inoo dhibaayey oo haddana taagan in xoolaha somaliland loo furo suuqyada khaliijka gaar ahaanna ay nagala hawl galaan dowladda sacuudiga oo aada u qaata xoolaheeda iyaguna marketkooda ay noo furaan hawshaasi weli may dhammaanin waxay ku jirtaa hawl weli socota laakiin aynu u baahnayn hawl aada inoogu taagan oo inay horo dhammaato shalay waxay ahayd qodobka koowaad markaan wada hadalay sheekhaa mutakrina wuxuu yihi hawsha horan oo aynu uga ballan qaadnay bal had dambaysata sacuudigu oo howlo badan maraysaay ta suuqeenu waa inay degdeg u dhammaata wiigana waxay dirayaan qolada macaamiishtakooda hawshaas way jiisantay inay hore way gashaabay ahayd haddana hawsha labaad waxay ahayd baasaboorka somaliland inay naga caawiyaan inuu noqdo mid la qaadan karo oo adduunka uu maro oo waxyaalaha shardiga laynaga dhigaya ay naga caawiyaan ta kale dadka somaliland maadaama ay labadeena dal saaxiib yihiin oonu wax badan wadaagayno in suuqoodan shaqadana dhalinyaradeenna kuwa halkan iyo kuwa halkaaba loo furo waraaqaha dhulkan laga joogana loo furay dadkeenana balan aynu hore wada gallay oo naga aqbaleen bay ahayd iyaduna weli aan dhammaanin ee brosees ka socdo maxaa dhacay marka hawsha marka hore ee dusha laga heshiiyey mabdi-iya iyo marka loo gacan qaado way dhibaataa arrinta baasaboorku waxay gashay faraqyo badan oo caalami ah oo dagaalada loolanka adduunka ka socda ayuu dhex galay waxaananu filaynaa ilaahay idamkiisa inoo ballan qaadeen ilaa bisha juulaay inuu markaas soo baxo madaxiisa maanta waa ognahay xanuunka ay ku hayso dadkii dhalinyarada in la helo baasaboor laakiin waa hawl adag oo kolba dhan isu geedaysa kamanana harin qoladana dadaalkii waa nala wadaa shalayna amarkaasu bixi waxaa ka mid ahaa in la furo suuqa shaqada ee dhalinyarada ee halkan kuwa gudaha jooga iyo kuwa halkan joogaba waxay ku xidhan tahay oo arrintaasi waxaa niban tahay waa dokumentiga qofku u leeyahay si qofkii somaliland ee halkan joogay looga duwo soomaalida kale waa in dokumentiga lasii ogyahay oo gaara yeesha laakiin maadaama aanu baasaboorkaas weli samaysnayn iyo shaqadu intaanay samaysnayn ma suurto gelayso inaad qofkii oon id lahayn suuqii shaqada geliso shalay waxaanu ka codsanay dadka graduateska ah ee jaamacadaha dibadaha ka soo baxay ee somaliland jooga ee gaar ahaan kusoo takhasusay petroleumka iyo howlaha kale halka ka banaan in tixgelin gaarana loo siiyo oo inay halkan yimaadaan oo waxay dukumentagaystaan ma lagu siiyo shalay ay noo ogolaadaan iyo dadka lamidka ee shaqooyinka muhiimka halka ka yaqaana
odaygu waa naga aqbalay kuwii nala joogayna waa faray jaamacoo qolada maclinta qaabilsanna wuxuu soo diray inta ku dal taagan iminka 40 buu sheegtay hala soo qaado luuga iyaga shaqo loo waxaa ka weynaa oonu berigaa ka heshiinay in la bilaabo dekadda 400 mitir u horreeyay in la bilaabo sanadka 18 dhexdiisa waxaan ahayd arrinta ugu warbar badan ma la bilaabaya badbala mise inagunbay inteenii nala dhuuqaya waxay ilaahay mahadiye inay ballantaa iyo lacagteedii fushay oo la bilaabay dhismihii dekadda dad badan ayaa markii doodaa berberi socotay in badan akhriyaya waa riyo oo lacag la gelin maayee maamulkeenu bay nagula dhuuqayaan wax badan noo soo wadaan maanta dekedii waa la bilaabay hawsheeduna way socotaa 400 mitir ee dekadda cusubna waa la dhamayn doonaa insha allah 2 sano gudahood qodobka kale ee aynu ku heshiinay berigaa aynu ku warranay wuxuu ahaa waddada u dhaxaysa Wajaale iyo Hargeysa in la sameeyo sanadka 18 waddadaasna way bilaabantay waa ogtihiin lacagteediina way soo diyaariyeen badankeediina waa la gudbiyeen si hawsha degdeg loogu bilaabo waxaanu ka codsanay in lagu horreeyo biriishada oo dhibaato badan lagu hayo guugii oo laga bilaabo intaan waddada hore sidaas ka ahaatee waa la kori doonaa une horta in 7 bridge ee la dhisi doono laga bilaabo oo weliba kuwa ay ku socdaan biyooda xawliga ee inta wadad ku dhintaan sida dacalmur oo kale iyo sheekh awr xadoo kale iyo in hore laga bilaabo iyana alxamdulillah way bilaabantay waxaan ahaadeen labada mashruuc ee dhaqaale ahaan ugu turroonaa waxaan ka codsanay maanta waanu sii wadnay mashaariicda horumarineed in la sii ballaariyo oo qaar badan oo kale lagu daro xataa waxaan isla hedisaynay airborku weyn xoolo badanna waa la geliyey deked kalena way dhisayaan waxaan xitaa fikrad soo dhaweyna ahayd airborkaas inaanu ku ekaano diyaarada yaro military inay ka duulaan inuu noqon karo garoon loo isticmaalo sida mushtara waayo dhisi kari maayaan garoon intaa dheer iyo xoog leh garoonkan waxa ka soo degi kara diyaaradaha qaada 120 tan 160 afar taangi 5 taangi kuwa qaada haddii loo isticmaalo kaargooga waxay la mid yihiin dekeda kale oo kale oo waxa dhigi kartaa alaabta oo markabku dhigo waxay iman kartaa diyaaradda Nigeria ka imanaysa ta Suudaan ka imanaysa ta Ethiopia ka imanaysa ta Afrikada dhexe diyaaraddu waxay qaadaysaa 160 kun oo tan marka halkii gaari aan ka gaarsiiseen Afrikada ballaaran ka sanadka haddii ay aqbalaan in garoonka loo isticmaalo oo lala wadaago oo filaya inay iminka u dhagan waliyo ay aqbalayaan waxaan qabaa inay tahay guul kale oo weyn oo dekada berri aynu ka helay oo diyaarada caalamka oo dhan iman karaan waana fikrad iminka aan codsanay waxyaalo badan oo xagga siyaasadda ay naga caawiyeen oo xoog leh ayaa jira waa ogtay sanadkii tagay tuufaano siyaasadeed oo kala gedsan baa ka kacay geeska Afrika waxyaalo badan baa cirka isku wada shareeray mar walba cod lagu tixgeliyo su'aal waxa tiraahdaa ama buuraha ama buur ku tirsanaw cudud dhaqaale lagu tixgeliyo oo galaan gal badan leh oo saaxiibo badan leh oo in badan naga caawiyaan uga mahadnaqano ayay noqday qoladan aynu saaxiibada noqday imaaraat oo aad iyo aad uga mahadnaqay waxaana taa ka garataan sidii uu sheegay Cabdullaahi Kongo protocolka ayna siiyeen ay ummadda Soomaaliyeed maanta u fidiyeen waxay ka mid tahay calaamad muujinaysa qadarinta ay noo hayaan iyo rajada aad fog ay ka qabaan xiriirkeena iyo sida ay u aaminsan yihiin wax wada qaybsigeena iyo in daraheena midoobaa oo mustaqbalka dheer ah ayaa loo qaadanaya oo u muuqatay marka waxyaalaha marka la shaqeynayo xanibadaha soo baxa challenge-ka soo baxa iyo waxyaalaha dib u dhacay in lagu dhiso ma aha ama dad badan ay boolka sameeyaan taana aad iyo aad baan u kalsoonahay waan uga mahadnaqaynaa soo dhawaynta ayna soo dhaweeyeen haddaan safarka intaa ka gudbo sanad ka hor baynu halkan ku kulannay sanadka xukuumaddeedu way cusbay dalka buuq badan baa ka taagnaa xanaftii doorashada ka taagnay horta dimuqraadiyaddu waa balaayo laga maarmi laayahay dimuqraadiyaddu waa balaayo laga maarmi laayahay
xalay waa arkaysan ingiriiskii baasha keenay wixii haystay iyo sanadkaana nimankii ingiriis ilaa 600 sano ma keenay dimuqraadiyadda xalay halkay isla taagan yihiin oo ah haddii la yeeli waayo oo la aqbali waayo in laga baxaa yurub iska doona way baaysa waa sharci waa hadda 600 sano isku lahaa iyo hal joogo prime ministerka xalay waa tii kari weeyday markii u dambeysay xataa way soo rogtay weeyday codkii marka dimuqraadiyaddu horta dhibtaas ay leedahay inaga way nagu cusub tahay dhaqankeena ma yahay waa la inoo dhiibay laakiin way jeclaan wixii lagu heshiiyaa ma qurmuuna wala Soomaalida wixii ku heshiiyaa ma qurmuuna marka hadii dhibteeda inaynu qaadano barano weey laba isku helinayno dimuqraadi waa noqonayna iyo waan culubna hadal baan marka hadal leeyahay waa isku xanaaqinaa oo istilina labada isma qabtaan dimuqraadiyadda afka lagu kala baxaa dimuqraadiyadda afku baa lagu kala baxaa dimuqraadiyadda labada kursi soo jeedo baa la soo dhigtaado sida ay hore tireen reexada gambar baa soo fariistaa gambarku baa la soo fariistaa gacanta la isma gaaro laakiin de inagu waxaan doonaynaa in dimuqraadiyadda noqono haddii la yeeray soo gaaraan gacantii qorayso qaadano marka labada kala reeb waa dhaqan cusub oo adag tu kalena kulan dimuqraadiyaddu waxay ku fiican tahay in la isku haysto babaadi wadooy anagu saasab jeclaan loo abuuro dhaqaalaha magaalada ay wadada halka la geeyo in halka biyo laga qaado in waa rayga la soo qabtaa laakiin baashi marka reer laga dhigo weliba berigii hore waxaan ku lahayn rag geedku ma isku leen jiray rag geedka ama xafiiso dadka soo warmaano intay qoris ku xidhaan xitaa ku reemayaan oo maanta soo warmaanay waxa isku dhahdaan ayay soo baxaan oo dadweynaha ma soo gaaray warkood oo dadka dhalinyarada iyo dadka aansi arinta badan ku jirin iyo dadka caadifada badan iyo haweenka iyo sodohaha iyo hablaha iyo xabeena gaarsiin jiray hadda waxa la helay meel calooshaada waxa ku jira laga soo saarayo oo la yiraahdo social media saasu ku eegaya wajigaaga wuxuu doono ka akhriyaa kaaga daranta wuxuu qaadayaa sawir kan iyo sawir aakhira jira hadduu doono isku dhajinaya hadalkii uu ku dul xirayaa qofkii warka uu rumaysanaya ila waa muuqaalkii wuxuu la isu dhigay qofkina la oran maayo malaha dee qof weyn baa beenta inta laga ururiyay tabatana waa dhibaato inaga ma aha adduunka horba kaga qeydisay marka dimuqraadiyadda nagu cusub oo ordina inagu dhaqankeena ahayn qabyaaladii oo dimuqraadiyadda dhex gashay bahalkan social media oo dadkii warkooda gaarsiiyay marka intaas kulanto qofka dhageysta dadka reer Soomaaliland marka waa hadaya qofka dhageysta ee ajnabiga ama qofka ka maqan wuxuu sareeyaa malaha dadka dad mirqaam ah hadduu u dhawaado xaray war malaha dadka dad goba oo xishooda ma aha وانا قواده وارتيس عبد الله نكي سو دونت يام كعلى علي يام كجلجلان حاكم ما انا سو دون قرا وانا لو تاغ واسكدا marka ninka soo xisbiga sharaxay ninka yiraahdo waa laga leeyahay sharaxaad ka joog hebel baa kaaga wanaagsan iyo codku siin maayo ilaa aakhir ululmi ma ha uu qoro adaaska aad soo doortay wixii waxa aad dadka ugu dhigtay arrinada codkaysi maanta hayga tagay hebel wiga aamusay xalay baan koongal la faqay oo la joogtay waxaan ku codkaysi oo taniyo ma inay oo hadda way gaar aamusay badanaysa marka dadka soo soo qaad hoosta ka siigaysa wartana muxuu yeeri marka ninka baash dadka saa u soo dhibay doorta kaleedo yaani ku waan ka ahaaday kuwa kalaba ee weerana birbiqeen baash dhibteedo la xisay marka horta hawlahaas ayaa jiray alxamdulillah aad bay inoo ruuxday doorashadii dambe waxaana inoogu ruuxday dimuqraadiyadda ayaa qabyaalad gashay si qabaliga codku dhacay nasiib darrana waa si qabaliga ayuu codku dhacay waan qabaa in laga waantoobo oo aanu meel inoo sii waday marka arrintaa waa laga soo bogsanaya waxay soo baahan tahay in qaran ahaan laga gurmado oo dimuqraadiyadda iyo qabyaaladda aynu kala ilaalino waxaan u baahanahay inaynu campaign-ka iyo cadaawada kala ilaalino waxaa loo baahay dadka campaign-ka galaya ku jira inay bartaan halka ay gaarayaan iyo halka ka soo laabayaan waxaasoo dhan baa dhiman markaa sanadkan aad buu dhibado haddana waynu ku celinaa dhibaatadii sanadkanna
tiitu kowan baa inoo taala baarlamaankeenu shantoon buu joogaa waa in la doortaa guurtiidu waa dhaxlay dimuqraadiyadda isma qabtaan waa in la doortaa dowladii hoose iyaguna way muddo dhaaf intaasoo la isugu yeedho dhowr kun oo qof aynu doonayno dooran tii horena xanuunkeedu waa inahaya iyo xanafteeda waxaan u baahan nahay waa balaayo loo baahan yahay waa waddo aynu jeexannay meelaynu uga wareegno male si kaloo aynu suxkuna garan mayno waxaynu shantii sanaba golaasha aan dooran dhaqaalahayna gaga daran ay leedahay hawsha amniga say u khalkhalinaysaa ka daran ciidamada say u daalanaysaa ka daran laakiin de haddii aynaan iyadii ku soconayn la innagaa dooranaye sideebana si xukumayna marka waxay la tahay taana waa u diyaar garoobayna waanana waa isku tegaynaa iyo inaynu dhahno war wax waa kaambayno waa turba la ciyaaraye iyo inaan colaad ka dhigin nina qabkiisa wax la yeeli maaye tii hore shacbigii codka bixiyey ee saddex xisbi oo xisbiga aada u xanaaqay waddana uu ahaa shacabkiisii waa ka soo bogsanay waa u tegey anoo dee qoladii xisbigii doorashada heshay ahaa madaxweynaha waajibka ayaga saaraa inaan weliba gurigiisa ugu tago inaan dhaho walaalow maxaa tabanaysaa walaalow waxaa la rabaa inaanu meesha dalka waa wada leenahay waxaa tabanaysaa aan qaban karayana aad ii sheegto wixii dee dhacay qadarihii ina dhaafayna berita waa iman doontaa aynu barano dee bahasha aynu barano tiradan aynaan garanayno sida teeni hore ka duwan runtii dadweynuhu u codeeyey xisbiga waddani oo degmooyinka igu xooga waaweyn iyo gobollada igu xooga waaweyn o dhan aan wada maray waxaa layga soo dhoweeyey oo laygala kaftamay oo layga niyad wanaagsanaa si aan layga soo dhoweynin hargeysa iyo gebida iyo burco jabi oo ka weyn taas waxaa kutusaa dunta wanaagga dadkeena markaad hoos u daadgato dunta wanaaggooda tusa marka aan la gelinin wax aanay garanayn ee dad ay aqoon bidayaan aanay gelinin wax aanay garanayn aanay ku qasin duntooda xarinta aad ka yaabaysa marka qofka caadiga markaad tagtay madaxweyne iyadoo caynkan wuxuu kugu rabayaa sidii Soomaaliga u rabi jiray warniyo dee dalkeena way baata adana maanta wax laga dhigay dee wax badan waa laga sheegayaa dhibaato waxay la tahay isbedelo boqoladii noqo oo waxaan doonayaa dee oday dalka saay noqoto markaad adarta meenu saarayna adiga maya wax dhibaato ma aragtay maya meena waa yaro sheekha waa keenay maana inta bilaawa dee tananiki wuu qaboobayaa waa wada degaysaan waa shaqeynaysaa halkaa waxaan ii sheegay inaydaan ka warwarin in dadkii codka ku kala tagay shacbi reerkiisa Soomaaliland maanta aad iyo aad uga bogsay xaftii hore waxa qurahay tabanaya xisbiyada mucaaridka oo taban doona oo mucaarid wala tabanaya oo kulmiya ugu tabasho badan markuu mucaaridka ahaa xisbiga mucaaridka dawladda awoodii waa laga hayay wuxuu doonayaa mar walba inuu sheer qaato inta uu hayaa kuma yara waa runtii soo ma hayo waayo awoodda ugu weyn waa madaxweynaha xisbiga loo doortay kuma fila kolba u xiro la siiyaa marka cabasho dawladda iyo aniga laga cabanaya way joogtaa waana joogi doontaa waana jirtay anna waxaan ku dadaalayaa inaan aad iyo aad cabshaa u yareeyo inta aan qaban karo nin baa yidhi annaga raggeed war baahan jiray garsan qaadayna annaga mucaariya maxaa ku soo maray kulmiyaanu ahayn cidina kama cabasho badayn cidina kama xanuun kulule kama buuqadayn ma diidayno ninka dawladda ka cawda ninka madaxweynaha ka cawda ninka canaanta ku kululeeya ninka maalintaanu yar qaldanno si wacan goolka nooga dhaliya noola eexda waa intaanu samayn jirray laakiin iyagana waxaanu dhahnaa aanu taabaro mucaarada annaga idka soo horreynay aanu taabara oo xadkeeda inaan dhaafin arrintaas meel wacan baan kaga imid waxaan saa ugu faahfaahinayaa dadka qurbuhu war badan ma hayaan waxaan soo sheelkun bay akhriyaan inaan halkaa xanuun jirin iyo wax laga baqdo iyo colaadtoona taasi waxay ahayd hawl culus oo wakti badan iyo resource badan naga qaaday oo hawlihii naga qabiyoobay aynu qolada la wadnay ama meelo kaloo badan ba naga dahaysa ta kale waa la taabtay waa arrinta reeraha balaa lama qarsado dadkii dalka joogay iyo dad dibadda jooga oo ay aada u dhagaystaanba waxa aada laynoogu salliday inay nagu baadato isku dhaca qabaa'ilka dadka inaga dhintay xabad reer isku dileen sanadkii 18 waxay ka badan yihiin 400 qof
dagaalada ciidamada guntooyinka waaweyn iskama dilaan meesha la yidhaahdo dharkaygeeyo iyo dhuume maalin qura 120 nin baa ku dhintay askari oo soo abtay iyo saydi iyo almadeera ceelaf weyn habar lamaan waxa ku dhintay oo intii ku dhintay dagaalka ay gaaraysaa 150 danka badan abti iyo inaabti iyo saydi iyo habar wadaag oo aan weligood meel kala tegin oo aan weligood meel kala tegin doon oo si kastood u wacdo iyo gurmad kastood u gasho aan kala qaban karin waa fidmeen lagu soo baxay dagaalka ceelaf weyn oo kale waxa ciidanka ka baaba'ay ilaa dhowr ilaa 8 gaari waxa ku dhintay intaas oo askari mid gaadhi qalibay mid kanaaca cuntay naxbad fikada ku dhacday oo ku soo gurmaday ka kalena uu ka cusub 3 sano sanadka dhan xoogayga xoog inta ugu badnay waxay ku baxday warwareysay waa dhibaatooyin ku soo baxday bariga hore odayba la maqli jiray dawladda la maqli jiray dadka igu canan badan waxay dhahaan sawti lahaa waa nin gacan ku loo waa askari dadka la iyo qabqabo xig oo boqolina qori wata markaan weerar iyagana laaya anna askarta la maxaan kordhi waa marada ku gubati waa mushkilad aad iyo aad u adag waa dagaal aan aqoon noloshayda oo dhan ciidan soo ah iyo jabhad iyo dagaal wuxuu noqday wax aanan garanayn si aan loo dhaqmo aanu cadow baan aqaan asishaa laakiin gurigaagii iyo afar shaqaana iyo adigii weerar hebel iyo hebel boqol kaanin halkaas soo galay oo Soomaaliland oo reebelka ay halalay maxaa la isku haystaa ninkii dambiilaha keenay wastoor baa laga qabanaya 300 baa qori soo qaadanaya horta dhibaatadaas waa dhibaato soo korodhay labada meelood inaga dhamaadeen alxamdulillah waxaan jecelahay saa ku dhamaadaan intaas waa dhibaatooyinka dalka jiray maxaa guuleyn gaadhay iyadoo waxa soo dhaw jiraan haddana dalka talaabay wanaagsan baa la qaaday ilaahay roob uu nasiyay xagga wax qodaalkana dadka oo dhan baa u jeedsaday hadday dawladda tahay taalkeeda oo aad daashay iyo shacbigaba waxaana noqday sanadka u horeysan isleeyahay horta bal khudaarta magaalada lagu cuno magaalooyinka oo badankeeda 100% Soomaaliya bay ka soo baxay iyo Itoobiya la keenay saddex mashruuc oo tijaabo ahaa oo dawladdu ay xoog u badan saartay wajaale xaaxi iyo beer si wacan bay markii hore waan qaadeen labadii bilood u dambeeyay roobkii baa seegay midhuhu way naga xumaadeen oo way yaraadeen laakiin waxaan haynaa calaf ku filan marka ay abaaru yimaadaan xoolaha Soomaaliyeed badankooda inay ilaa 4 bilood calaf ka bixiya ayaa yaro fadhara kaasa guud waxa jiray in cadawga Soomaaliland oo dagaal ay naga soo qaaday xamar la soo dhaxmariyay Puntland oo muddo dheer la isku haystay oo ciidan isku fadhiyeen oo ilaahay mahadi ah shacbiga Soomaaliland bari iyo galbeed sidoo uga go'an tahay Soomaaliland la daafaca ciidanka aan ku masruufaynay geeri laga soo kaxeeyay saylac salal iyo awdal iyo kii laga keenay hawd oo dhammaan 6 bilood waxay cunaan ciidanku raashin kii beer lahaa hawdii soo diray kii geel lahaa soo diray kii sac lahaa soo diray oo waliba xamaasad iyo inay samaan aan ahayn soo ururiya ay ciidanka dadku ku hayeen taqancisay weeyaan qolada international community-ga Somaliland inay xaq ku dirayso arrintooduna uu yahay channel 1 umada ay wato ee ay ahayn wax siyaasi wato oo safaarad waliba ku raacday dawlad waliba ilaa la gaaray in la dhaxlo markii hore se loo dhaadhiciyay inay yihiin qolo Soomaali kala goynaysa oo shifta ah taasina ay ku beerday qolada Muqdisho shicibku awoodii u muujiyay iyo ciidamada qaranka si naftooda u horeen ay muddo 8 bilood ah dagaalkaasi nagu socday lana ka soo qaaday xamar ilaa maanta la shaqaynayo inuu halkan taaganahay kaana waxaan u aragnaa Somaliland qolada xamar reer Soomaaliyeed hal baan ka rabnaa barorta intayna Cabdilaahu deedika u horeeyay odaashii meesha barigii ahaaye hal wax baan nimanka laga rabaa intayna isku qabsanayaan isducayn qolada xamar joogta talaaniga goysa jiray ma qirsan yihiin inaynu ahayn laba dawladood 6 bilood tan maanta heegi ka hadlaayo kartay waxa weey wararta laba dawladood Soomaaliya ma ahayn ma gobolada kamid aanu ahayn miyaana qabsateen xoog baan ugu qabsatay ereyga
madaxda xamar joogta kuwa hore iyo kuwa kan nin toos u aqbalaya ma jira Cabdullaahi mar haddaan taa hore ee 4 sano ka hor ee rasuulka aan laga heshiiyay sidee baa looga wada hadli karaa wax ka dambeeyay waxa weey laba dawlad baan ahayn waynu sunnay gureen wada dhisan uu dumay see loo dhisay laakiin haddaad tiraahdo waxa u badan lahayn waan ku haystay bal dhawna hawriyaan iyaga laga rabaa taas ilaa 5 goor bayna dhex galeen jimcada qurub raaxaysan ninka ka wakiilka iyo igad qaar Afrika ka socday annaga afar qodob baan ugu xidhay oo iyagana ku xidhay afarta qodob waxay ahaayeen kow maxaa isku haysaa waxaan isku haynaa xadka Ingiriiska iyo xadka Talyaaniga iyagu way diintaa xad reer bay sameeyeen xad reer oo qabaliyana ku stuurana oo halku ku yaala labiyada su'aal adag ma aha haddii Afrika dhan qolqolo loo kala gooyo la soo celiyo farmaajo xamarka aan maayo madaxweynaha haddii Soomaali qolqolo loo kala beeraha heeray xadkooda war qarso iska cad marda taas soo dii xadka horumay noo yaala waa qodob yaala oo nin walba dabar ku noqday shan waxaan ilaahdeen joojiye xabad joojin ogolaada waa ogolaada waxay ilaahdeen hala sii daayo maxaabiista diyaar baan u ahay caawdaan jooga diyaar baan u ahay hadii laga helay sida ciidamada loo kala durkiya ha laga wada tashay waayo waxay leeyihiin ciidamada dib ha loo celiyo ana waxa leeyahay xadkii 70 kilomitir bay iga hadhay saan uga noqon dalkayga dhexdiisa arrintaa waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada ilaas wasiirka telefoon ma nagula hadleen waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay waraaq bay soo direen waa 8 bilood ka hor mid waraqada noo saxay kalsoonida arrintaa idin gogolo waa saxay waa diiday isuuran baa soo gashay safiirka arrimaha dibadda soo hadlay intii la buul warqadu waa noo saxay afkii ku aqbalay waa saxay waay ilaa markay taagantay waxay midkii soo Afrikaanka ahaa wuxuu ka bilaabay halada dhexdhexaadiye xagee baa doonaysa isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa wuxuu waxaan geynaa Johannesburg waa ogol isagii baa lagu weeriyay hadda cishadooda waxay boorwan ka sheegay Turkiga warkariga ku aqbalay meeyne caalamku kala soo dhex galo wuu aqbalay warqadu soo celiyay hadda Ingiriiska Mareykanka EU Afrika baashan Yurub ka soo tagtay Sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la Ghana Accra si loo sameeyo guddi caalami ah oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex gashay waxa hubaala inay xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya walaalayaal waxay bahayn haddii Soomaaliland nahay warwaro aan garano oo inaan isku dhimano xabad inaga daa aan wada hadal waxba naga dhaxeeyay waxaanu haynaa qora xamar joogto leh wada hadli ma yeelno waayo naga midbaatiyay ma diidi kartaa iyagana taas ka goob bal halka xal laga helaayo odayaalo aanu ka fikirno hadda noo garabayo dadka caanka u garabayay gaalana markay meel gaarsiiyaba way kaga baxaan marka meel ay gaarsiinayaan jidguba way kaga baxaan taa waxaan ugu dheeraaday waa arrin culus oo dalka culays ku haysta oo warar haysta oo inaynu fahamno mowqifkan ku socona ah ayaa iyada saayid ku balbalaariyay waxa idinku xigtirayaa waxaanu saaray xoog in la hagaajiyo hanaanka dawladda ee loo shaqaaleeyo dadka runtii loo shaqaaleeyo waa mushaar aan qaadan yar tahay waa taagteen haddana in la sameeyo xeer qofka inanka ama inta shaqada ka soo baxday aanay oran anigu adeerkayna wasiir maaha abtigeena maaha dibitaati maaha xildhibaan suldaanka iyaguna waa badow markaa meel ba tagi maayo maxaan tacliinta ku falayaa in xarunta ku raacdo in laga baxsado oo la yiraahdo qalinka lagu tartabo ayaan ku dadaalay muddo badan iyo hawl badan bay qaadatay alxamdulillah sanadkan wixii dawladda shaqaale loo qaatay dhammaantood waxay ku galeen imtixaan inaan gacan ka qabo waliba waxaanu dadka tii anaga xamar reer gaadhay baan garanayaa intayna xagga xigta garka cadwaan garan xamar wixii naga gaadhay bariga shaqo tagnay yaanay dhalinyaradu imanin gobolada ee gobolada ha tagay qolada imtixaanka qaadaysa sidii baan u qaaday gobol walba ilaa
konton bay u heleen qayb intii markaa dowladdu baska ugu jirtay laascarood iyo cergaawon ka bilownay waxaa lagu soo dambeysiyey boorabaa ugu dambeysay galbeedkaa la gaarsiiyey arday waliba qalinkiis kusoo baxay laba ololaa magaalooyinka qaar kusoo baxay oo la isugu hadheeyey ciyaalkii isku socdiyey oo reer baa iga qaba waxaan uga gudubnay dhalinyaradan ku kala xidhan magaalooyinka ka berbere jooga hargeysa wax ka socdo waruma hayo ka burco joogaana caynawe waxa ka socdo waruma hayo ka oodweyne joogaa burco waruma hayo dadka iskuuladii waxa laga dhigay tuulooyinkan iyagaa kala guursada meel lama kala tagaan qurba jooggooduna telefoonku buu xaafidooda kala hadlaa dalka waa kala go-ay warba isma hayo si aynu taa uga baxno waxaanu samaynay oonu hintino waxaa national service shaqo qaran oo kharashkeeda iyo hawsheeda culayskeeda leh dad badan waxay u haysteen rio inaan la hirgelin karin laakiin ilaahay mahadii dadkoo nala taageeray dhalinyaradu nala qaadatay oo u badheeray dhibta iyo caloodayn iyo wixii ilaahayada isu geeyey waxaan ku guulaysanay 1500 oo dhalinyaro ah maanta inay shaqo qaran ku jiraan 500 waa hablo waxaan u deynay magaalooyinkooda jaamacadaha wixii loogu dhigaya theory loogu dhigayo class inamadu waxay naga ogolaadeen isagoo jaamici ah oo 8 sano soo fadhiyay iskuul iyo 4 sano iska diray 12 iyo 5 jaamacada 17 iyo sanad u shaqala ama laba u shaqala iyagoo intaas oo mar dhalinyaradu oo qaarkood xaas leeyihiin daada waxaan u qabanay 29 koob ilaalin waxa ilaahay mahadiyay inuu ogolaado inuu shaqo qaran galo oo sanad voluntary shaqeeyo oo uu og yahay inuu mushaar badan ka horeeyay laakiin uu ku iman qabo inuu dalkiisa ku dhigo systemka hagaagsan ee systemka dawladda loo soo maray kunkaan waxay ugu jiraan darweyne waxaan la baraa civil defense waxa la baraa citizenship wadaniyada waxa la baraa qaabka dawladdu u shaqeyso waxa la baraa gobolada kale iyo gobolada si ay isu yihiin waxa la baraa taariikhda dalka